nabigeena sallallahu alayhi wasallam miskiidkiisa nin baa ka sara kacay baahi buu nabiga hortiisa ku sheegtay yiri inni rajulun majhudun nin baahi ay hayso aad u baahan baan helay marti qaado markaa buu nabigu yiri halkaan ii fariiso saxaabigu nabigu daruuri ordo reerahaygi bal wax la quuto inay yaalidii iga soo ogaada sagaalkii aqal nabi maxamed uu lahaa baa la soo maray xaasaskii nabiga hal jawaab kaliya laga soo helay jawaabtaasi maxay ahayd la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma haweeney kasta waxay soo tiray soo sheegtay tiri ilaaha xaqa diinta xaqa kula soo saaray baa ku dhaaranay aqalada yada baad la cuno afka la galiyo ma yaalaan biyo la caba mooyaan sagaal aqal baad la quuto ma yaalo maxaa yaala kaliya biyo innakana maanta biladan iyo sanadadan waxaan cuni lahayn innakoo haysana umay dadkii haddana faqri ka baqayaan marba hadduu qofku faqri ka baqayn waa faqiir ugu soma annaasu fii khawfi lfaqri annaasu fii faqrin fii khawfi lfaqri marba dadku hadday faqri ka baqayaan waa fuqaraa sagaalkii guri ee nebi maxamed uu lahaaba la soo maray jawaab keliya laga soo helay jawaabtee ilaaha xaqa kula soo saaray baa ku dhaaranee baad la cuno aqalada ma yaalaan biyo la caba mooyaane markaa buu nebigu fadhiistay wuxuu yidhi war ninkaa martida yaa ii marti qaadaya buuhi maanta yaa ii marti qaadaya abu talxa sare kaco yidhi anaa marti qaadaya raac abu talxa reerkiisa waxa yaalla kama warqabo guriga markuu soo galay ninku dibadduu joogaa gobashiibuu u dhigay hal cindaki shay buu yidhi wax la cuno ma haysaa markaa bay tihi may carruurta yaryar cashadoodii maayna wax kale aqalka ma taallo carruurta cuntadoodii wax kale aqalka ma yaallaan markaasuu ku yidhi ciyaalka si un bal u yar ciyaarsiiyo seexiyo intaad iyaka ugu tala gashay ninkaa daydkaa soo geliniye isagaan hor dhigaynaa daadna markuu soo galeen intaa hor dhignay isaga innaka faynuuska inoo dami oo aqalku mugdi ha noqdo labadeennuna afkaan dhaqaajinaynaayo si dad wax cunaya ayaan iska dhigaynaa buu ku yidhi isagu intaa ha cune ilaa ninkii dayfka hadduu arko wixii aqalka yaallaba in isaga la hor dhigay oo dadkii reerka lahaana ay bilaa cunno yihiin ay bilaa casho yihiin kuma dhacaya da inuu cuno markaasaan u raalli gelinna buu yidhi faanuuska demi isagana waan fadhiisin waan hor dhigi adigii aniguna hee wa ariihi annaa na'kulu buuhi tus si waxaan wax cunayno afka han dhaqaajino ha shaqrayno ubadkii gaajay ku seexdeen saxaabiyadii gaajay ku seexateen saxaabigii gaajo ku seexday intii ubadka loogu talo galeena wuxuu hor dhigay dayfkii adiga iyo aniga iska soo qaad xilli duhurkii oo qadadii salaadii aan ka soo baxnayo xaafadii aad timidayo islaantu cuntadii ay nii kala gurtay ayaa laba oday oo adeeradaayo oo aad filaynba kugu soo dul dhacay seed odhan lahayd hoteelka tege baad odhan ka ugu fiican waa kee waa kaa lacag soo saarayna laynaguma talageline dee waa laysa soo sheegaaye walaba hoteella maqaaxiyaha taga weli way furan yihiina gaadha waa kayna ugu fiican waaba ka naxaynaaba dayfka waa ka naxnaa maanta inagu muuminkuna waxa uu hayo waxaa loogu talagalay dayfka wax kula dayfka man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu dayfku waxbuu ku leeyahy waxaad hayso saxaabigii sidii buu habeenkii ku seexday waagii markuu beriyu gacanta soo qabtay ninkii dayfkii oo miskiidkii nebigu keenay sal alla alay wasalam markaa buu nebigu yidhi yaa abaa talxa ile nebiga waxyiga ku soo degaya moogta xalay toola qisadii guriga ka dhacday warkeedii buu nebigu hayaa yaa abaa talxa labayk wa sacdayk yaa rasuul allah weliba saxaabadu cajiib bay haayeen markay nebiga iyo dhexdooda ay joogaanna waxay muujinayaan rag waxay muujinayaan aynan baahi haynba qosol iyo farxad iyo rayrayn iyo bashaashad bay muujinayaan laakiin markay aqaladooda ay tagaan ilaahay baryayaan ضعف يا فقراء يا وحي موجيان يا تملق إلهي بي قعما هوس نكتا إنك أنا ما أنت إنك دباتير أي كل عضو هل كان لقى آخرستا وجيسا معاكو هلي ورحالك أقول ما فينا ما أنت البلايا بعض الله يسوى الشيء بكورا ورمومك البلايا ما شيكتكو وجيسا لقى قرطو لقى آخرستا معها يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب إيه؟ من التعفف بين هيدي جاهل نك مقالة المدينة كل عصب رميقة
saxaabada aanan cilmi u lahayn magaalada Madiina markuu yimaado dhowrsoonida saxaabadu baahida bini aadanka ay ka dhowrsoon yihiin baahidooda ay qarsanayaan gudahooda ku qarsanayaan waxa loo maleynayaa baa Ilaahay inay yihiin niman lacag ku fadhiyo malqabeena lacag maaha waxay lacag yihiin waxay la qoslayaan lacag maaha bal way dhowrsoon yihiin oo baahida bini aadanka inay lisaanul haal iyo lisaanul qaal midna ay ku sheegtaan oo laga fahmo ay iska dhowrayaan baa Ilaahay yiri ولكن النبي وحيغا وشيغ صلى الله عليه وسلم مرقاسو النبي يقول لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة يا أبا طلحة حاليت ولا ضيفكين سنة ضمها موسين رقبتين إلهي بار عليك النقض كفر حيب رسولكم يري مرقاسا القرآن كسو دقي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنكم هنقاجونو معناها آيات قدهان وحي نقنكو أها أنكم قاجها كسيحنو لكن ولالك يا مسلم كهايونا قاجنا كسيحن ورنالو شاء الله الرسول عليه أمين هذا ولا ليال والله القرآن كما قاعد خرجتك إيه هل كمانت إنكو أتاقنهي كالأرض والسماء يكو حنولادو ولالكي هاد انت اسمي لهين وحي لغو التربية ديو لغو أبوري ودقن يدين لغو دقل إن الدين شادو كامل لغو تمدوني ساها إن إيمانكاكو كامل لغو تمدوني ساها إن الجنة هش مدوني ساها نفتا لو حال لجعشا ولالكا لجعلو نفتا لو حال لجعشا هاي walaalkaaga muslimka la jeclo kaanu hangaajodo laakiin dayfkaygu ha ii dhirgo anu handinto bishaaro bushri haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada